maanta waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa 30 xaqiiqo oo dhinacyo badan taabanaysa oo Jarmalka ku saabsan. Haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe dheh si muuqaalada dambe aad ula socoto. Jarmalka dadkiisu waa 83 milyan oo qof. Saddex dhig ka mid ah dhulka Jarmalka waa kaymo iyo geedo. Qalcadaha ama dhismayaasha minaaradaha leh waa 2100. Jarmalka waa waddanka toddobaad ee ugu weyn qaaradda Yurub. Cabirka badkiisa waa 137,847 mayl oo isku wareeg ah. 34,836 ka tirsan cabirka badka Jarmalka waa dhul, halka 3,011 mayl oo isku wareeg ah ay ka sarreeyaan ama ay saaran yihiin biyo. Saldhigga tareenada ee Berlin Hauptbahnhof ayaa ah saldhigga ugu weyn qaaradda Yurub ee tareenada. Berlin waxay 9 jeer ka weyn tahay magaalada Paris, waxayna ka buundo ama bridge badan tahay magaalada Venice ee dalka Talyaaniga oo leh in ka badan 100 jasiiradood oo yaryar. Venice waxay qiyaastii leedahay in ka badan 390 buundo. Marka laga soo tago 16 gobol ee federaalka ah inuu leeyahay Jarmalka, waxa kale oo uu leeyahay 401 degmooyin maamul oo 295 ka tirsan ay yihiin maamul tuulooyin ama degmooyin yar ay hoos tagaan, iyo 102 magaalo deegaameed oo maamul madax bannaan leh. Bavaria ayaa ah maamul goboleedka ugu weyn Jarmalka. Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ugu cufnaanta badan marka laga hadlayo cabirka dhulka iyo ciriiriga dadka ee deegaan ahaan. 9 waddan ayuu Jarmalka xad la leeyahay: Denmark, Poland, Czech Republic, Austria, Switzerland, France, Belgium, Luxembourg iyo Netherlands. 65% waddooyinka waaweyn, autobaanka ama highwayga, gawaarida waxaa lagu kaxeeyaa xawaare bilaaxad ah. Jarmalka waa dalka dhaqaalaha ugu badan leh qaaradda Yurub. Wax soo saarka guud ee gudaha GDP ee Jarmalka waa 3.37 trilyan oo dollar, wuxuuna dunida ugu jiraa kaalinta afraad. Kaliya Mareykanka, China iyo Japan ayaa ka horeeya. Jarmalka waxa uu ku jiraa dalalka wax soo saarka gawaarida ugu horeeya dunida. Wuxuu iibiyey 5.9 milyan oo gaari kaliya sanadkii 2001. Volkswagen, gaariga ay soo saartay ee Golf, ayaa ah gaariga lagu iibsiga badan yahay taariikhda. 2012 430,000 oo Golf ayaa qaaradda Yurub gudaheeda lagu iibiyey, taas oo 125,000 oo gaari ka sarreysa shirkadaha ugu dhow. 2013 shirkadaha Volkswagen, Mercedes, Audi iyo BMW ayaa ahaa kuwa gawaarida loogu iibsiga badan yahay Jarmalka. Magaalooyinka soo socda waxay mar ama ka badan caasimad u soo noqdeen dalkan Jarmalka: Aachen, Regensburg, Frankfurt am Main, Nuremberg, Berlin, Weimar, Bonn, East ama Ost Berlin, iyo Berlin oo mar kale caasimad noqotay sanadkii 1990 ilaa haddana ah. Buuggii ugu horreeyay ee la daabaco waxaa lagu soo saaray Jarmalka sanadkii 1455. Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ugu horreeya wax soo saarka buugaagta. Waxaa lagu daabacaa 94,000 oo buug sanad kasta. Jaraa'idkii ugu horreeyay taariikhda waxaa laga soo saaray Jarmalka sanadkii 1663. Jarmalka waa dalkii ugu horreeyay ee hirgeliyey waqti kaydinta maalinta ee Sommerzeit-ka ama xilliga xagaaga. Waa xilliga ay maalintii korato habeenkiina yaraato. Sanadkii 1916 ayaa la hirgeliyey. Haddii aan ku sii kala caddeeyo, waa in xilligaas la bilaabay in saacadda lagu kordhiyo waqti marka la gaaro dhammaadka bisha March ilaa laga gaarayo Oktoobar oo saacadda dib loo celiyo. Afka Jarmalka waa kan dadka u dhashay ee ku hadlaa ay ugu badan yihiin qaaradda Yurub: Germany, Switzerland, Austria, Luxembourg iyo Liechtenstein ayuu af Jarmalka u yahay luqadda rasmiga ah. Donau Dampfschifffahrtselektrizitäten Hauptbetriebswerk Bau unter Beamtengesellschaft waa ereyga ugu dheer ee la daabacay. Waa Jarmal. Wuxuu ka kooban yahay 79 xaraf. Af Jarmalka waxa uu leeyahay 35 lahjadood. Jarmalka waxa aad looga jecel yahay rootiga. Waxaa laga cunaa in ka badan 300 oo nooc oo rooti ah. Waxaa ku yaala 17,000 oo foorno oo rootiga lagu farsameeyo. In ka badan 1,000 nooc oo wurst ah ama sausage-ka ah ayaa laga cunaa Jarmalka. Inta badan goobaha dadweynaha waa ka mamnuuc cabista sigaarka, laakiin wax lala yaabo ah in la ogol yahay cabista khamrida ama alkoolada. Jarmalka waxaa ka jira 26,000 oo kooxo kubadda cagta ah. Kooxahaas waxay leeyihiin in ka badan 6 milyan oo xubnood. Xulka dalkan waa mid guulo badan gaaray. Wuxuu ku guuleystay 4 koob adduun oo kubadda cagta ah. Jarmalka waa dalka leh isku tagyada taageerayaasha ugu badan caalamka ee kubadda cagta. In ka badan 400 oo xadiiqooyin xayawaanada lagu xanaaneeyay ayaa ku yaala Jarmalka. Waa kuwa ugu badan caalamka ee dal qura ku yaala. Waxaa jira boombale caan ah oo Angela Merkel lagu sameeyey oo loo ekaysiiyey. Xafiiska Angela Merkel waxaa Berlin looga yaqaanaa mashiinka dhardhaqista, washing machine. Sababta haddii aad isweydiinaysana waa naqshadda uu u samaysan yahay oo cajiib ah. Tagaasida ugu badan
waa Mercedes. Waddada ugu yar dunida ama ugu ciriiriga badan waxay ku taallaa magaalada duqda ah ee Reutlingen ee Jarmalka. Waddada oo u dhaxaysa laba guri oo aad isugu dhow ayaa la yiraahdaa Spoorhofstraße. Jarmalka, haddii uu maxbuus isku dayo inuu xabsiga ka baxsado lama ciqaabayo maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in dabeecad ahaan aadanuhu uu leeyahay dareen ay ku doonaan markasta in xorriyad ay haystaan. Intaas ayaan kusoo koobayaa xaqiiqooyinka ku saabsan dalkan Jarmalka ee aan 30 ka mid ah soo xulay. Waad ku mahadsan tahay la socoshada. Haddii aad channelka ku cusub tahay, aan mar kale ku xasuusiyo inaad subscribe dhahdo si aad ula socoto muuqaalada dambe ee aan soo wadaagi doono insha Allah. Mahadsanid.